بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنتم حنكون سجناهاي حبت وين الجزيرة runtii waa meel aad u qurux badan ay isugu yimaadaan dad Soomaali badan oo isugu jira hablo wiilal gabdho hooyo iyo aabe waa meel runtii xeeb aad u qurux badan oo damaashaad loo yimaado maanta waxa runtii xeebta soo booqday shirkadda isgaarsiinta Hormuud aan ognahay in adeegyo badan oo qurux badan ay dadka macaamiisha u soo bandhigto ay ka haqabtirto baahi walba ay qabaan runtii waxaan la joogaa madaxa marketingka xarunta Madiina gudoomiye Jino waxaan leenahay gudoomiye soo dhaw marka hore waa dhawahay aad iyo aad ma sha Allah waan kaaga mahad celinayna runtii maanta booqashada aad ku timid deegaanka Jazeera maxaa adeeg cusub oo maanta aad soo koriseen hadii aad tihiin shirkadda isgaarsiinta Hormuud aad iyo aad ay u mahadsan yihiin dhammaan dhalinyarada xeebtan ku damaashaadaysa oo runtii qaaliga ah runtii maanta waxaan soo booqanay xeebta Jazeera annagoo runtii ujeedadeena ay ahayd inaan macaamiisha la wadaagno qiimo dhimistii ballaarneed ee lagu sameeyay adeega internet MB oo run ahaantii dhalinyaro badan aysan ogeyn qiimaha uu leeyahay iyo muxuu ahaa qiimo dhimista lagu sameeyay annagoo la wadaagayna ayaan sidaas darteed aan soo booqanay run ahaantii dad badan ayaan la wadaagnay marka ujeedada aan horta u soo booqanay waa taasa gudoomiye waa maasantahay waan kaaga mahad celinaa runtii booqashadaada quruxda badan waxaan rabnaa maadaama tartamayaal badan iyo shirkadooyin fara badan ay degan yihiin ama ay ka shaqeeyaan Soomaaliya sida Somnet iyo Telsom iyo Hormuud intaba waan ognahay waxaan rabnaa adeega maanta cusub ee halkan aad ku soo bandhigaysaan iyo qaabka uu u shaqeeyo iyo qaabka macaamiisha ay ugu faa'iideysan karaan intaba inaan noo sharaxdo maasan waxaan u fahmay maxaa uga duwan tihiin shirkadaha tartamayaasha ama industry-ga iskula jirtaan runtii qiimo dhimistan waa qiimo dhimis ballaaran oo lagu sameeyay adeeg MB waxaan uga duwanahay shirkadaha kale xagga tayada runtii aad iyo aad ayaan ugu wanaagsannahay xirmada oo $20 waxaan isleeyahay Hormuud kaliya umba xirmadaas iska leh waa xirmo runtii anficaysa dhammaan bahda waxbarashada ganacsatada dhammaan wuxuu ahaa dhalinyarada xirmada $20 waa xirmo unlimited ah oo qofka uu ku shubanayo $20 bil free ah oo internet uu helayo macna wax allaale wuxuu doonana uu ku sameeysan karo marka waxaan isleeyahay jaanis weyn oo run ahaantii dhalinyarada ay heleen waaye oo Hormuud ay u keentay ka faa'iideystaan ayaan leeyahay inay ka faa'iideysan doonaan rajaynaa insha Allah okay gudoomiye waa maasantahay waxaan noo sheegtay in $20 oo xirmo bil free ay heli doonaan macaamiisha inay ka faa'iideysan doonaan adeegyo kale oo shirkadda ay bixiso internet ama jiraan oo internetyo kale ka duwan internetkan shirkadda Hormuud kaliya ma bixiso MB ama mobile internet kaliya ma bixiso shirkaddu waxay bixisaa adeeg home level internet oo la yiraahdo ADSL plus oo run ahaantii $30 oo macaamilku la baxayo guryaha lagu isticmaali karo familka oo dhan ay isticmaali karaan oo ADSL plus la yiraahdo waxa kale oo bixisaa shirkadda hay'adaha iyo institutions waaweyn ay ugu tala gashay adeeg B2B la yiraahdo oo run ahaantii high speed ah waxa kale oo jira EC Wi-Fi oo run ahaantii asagana ku xiran goobaha qaar marka shirkaddu qaybo kala duwan oo internet ay bixisaa waxayna ugu tala gashay qaybaha kala duwan oo bulshada ay ka kooban tahay marka habdaba waxay soo saartaa bulshada internetka ku haboon qayb kastaba way soo saartay meena okay gudoomiye waa maasantahay adeega markii laga reebo $20 ee xirmada bilka free ah ma jiraan xirmooyin kale oo ka yar maadaama dadka Soomaalida aysan isku jeeb ahayn dad waxa jiraan aad xogaa low ah dad middle ah dad high ah maadaama aan isleenahay dadka level kala duwan ee nolosha ugu jiraan ma jiraan xirmooyin ka yar $20 ee unlimited ka way jiraan dabcan waxa jira 25 senti oo 250 MB oo macaamilku helayo 50 senti oo 700 MB oo helayo macaamilka $1 oo 1 GB oo helayo $5 oo 7 GB ah $10 oo 15 GB ah xirmooyin saas u kala duwan ayaa jira oo hadba loogu tala galay macaamiisha tabartooda iyo baahidooda sida ay u kala duwan tahay okay gudoomiye waa maasantahay aad waa maasantahay
ugaas magacaaga saddexan adoo raalli ah in xaraa igu soo celisid barnaamijka magacaygu saddexan waa Cabdi Jiino Cabdulle waxaan ka socdaa shirkadda Hormuud gaar ahaan qaybta marketingka Madiina xarunta Madiina madaxa marketingka xarunta Madiina ayaan ahay waa kulli faafahinta xaqiiqa ku saabsan waa taas su'aasha arabina ku waxay tahay maadaama aad ka hadlaysid barnaamijka internetka ah ma jira wifi caadiga ah oo internetka loo isticmaalo oo smikaar ku shaqeynaya ma jir maleedihiin haddaad tihiin Hormuud MiFi-ga ayaan u fahmay su'aashaadu inay MiFi-ga ay tahay wuu jiraa run ahaantii MiFi ayaan leenahay MiFi-ga run ahaantii simikaara macnaha aad gashanaysaa simikaarkaas ayaa data ku shubanaysaa waadna ku isticmaali kartaa goob walba iyo meel walba oo aad joogto macnaha marka sidaan u isticmaalaya mise wifi-ga oo kale u isticmaalaya oo bisha $3 ku shubanaya mise uu ka qiimo badan yahay mise uu ka qiimo yar yahay lacagta lagu shubayo simikaarkaas okay magacaygu horta waa Xuseen Maxamed Yuusuf waxaan ka mid ahay waa second officer oo marketing Madiina su'aashaas markaan ka jawaabo MiFi-gu waa adeeg waa modem yar oo shirkaddu ay u talagashay macaamiisha gobol degmo iyo tuulo inay ku isticmaalaan adeegu qaybo badan oo leeyahay qaabo badan lacag lagu shubtaa laba qaab jirto qaab basic ah oo xidig 713 ah oo standard ah iyo qaab kale oo la yiraahdo MiFi Plus ku waa xidig 721 xirmooyin kala duwan oo leeyahay MiFi Plus markii gudaha loo galo tusaale isbuuc leh bil leh iyo maalin leh intaba uu leeyahay laakiin basic markii la yimaado xidig 713 qofku waxa uu yaro ku shuban karaa $1 aad iyo aad baan mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad barnaamijkan ugu soo gudbiseen iyo su'aalaha naga jawaabteen waa idinka mahadcelinaa hadda waxaan ugu soo kordhay maamulaha marka insha Allah taala isagana ku soo dhaweynaa soo markiisa kaalinta naga qaato بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamuud Isaaq Cumar fanax ayaan ku magac dheerahay waxaan ka mid ahay shaqaalaha shirkadda maxalliga isgaarsiinta Hormuud gaar ahaan qaybteeda Madiina runtii farxad weyn ay tahay inaan maanta aan farxad la wadaago bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan macaamiisheena qaaliga ah xeebta Jazeera oo aan ugu soo bandhigno sidoo kale waxyaabaha aan qabano oo service-da qayb ka mid ah gaar ahaan qaybta internetka waa sida akhyaarta u sheegtay maanta internetkaas ayaa boontigeena uu ahaa inaan la wadaagno akhyaarta macaamiishan aan u soo gudbino qaabka iyo noocyada ay u kala shaqeeyaan idinkana waa idinkaga mahadcelinaynaa runtii fursadaha qaaliga aadna siiseen aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maamulaha aad iyo aad aan ka mahadcelinaa asxaabta qaaliga waxaan leenahay barnaamijkeena xisaab badnaa ee ahaa unlimited internetka ee ka socday shirkadda weyn ee Hormuud loogu bartay in ay shacabkeeda iyo ummadda Soomaaliyeed ay u soo barigto barnaamijyo xisaab badan marka waxaan leenahay asxaabta qaaliga ah halka aad naga daawanaysaan waa janalkeena Guur Family Official insha Allah taala waxaan rajaynaynaa barnaamijyada ku xisaab badan inaan isu kordhino marka insha Allah taala waxaan leenahay halkaas naga socda ugaas maxaad ku darsanaysaa dhibaato ma laha waa la habeenayaa maya kaliya waxaan ku diri lahaa maadaama aan wareysateen munaasabada aan xaybtaan u imaanay oo aan u bixinayno pamphletska aan runaan macaamiisha aan u siinayno maadaama aan kaga jawaabnay ujeedada aan halkaan u joogno inay tahay internet inaan macaamiishii aan ku wargelino qiimo dhimista ballaaran oo shirkadda Hormuud ay sameysay idinku haddaad runaan su'aal idin weydiino shirkadee ayaad internetkeeda isticmaashaan oo mobile internet aad ka isticmaashaan Hormuud ma isticmaashaan macnaha idinkoo soo koobayo waa masantiin aad iyo aad su'aashaada waa su'aal kulul laakiinse waxa way dhibaato ma laha waa uga jawaabaynaa anigu waxaan isticmaalaa shirkadda Hormuud waxaana leeyahay dhowr xarumood sida kamariga bukaandeeq medical supplies iyo isbitaalka bukaandeeq clinic labadaba waxa ugu jiro Hormuud wifi ah waxaan diganahay isgooska Taleex dabaqa Malbaga saaranahay qaybta isbitaalka waxay u taalaa Xamar Jadiid labadaba isticmaalaa internetka caadiga ah ismikaarkan Hormuud isticmaalaa marka waxa way waxaan isticmaalaa kala ma ahane in internetkeeda oo ah internet aad iyo aad u xawaaro badan oo speed badan oo markii cilada kugu maatana aad u gudbinaysid shirkadda kadibna ay soo jawaabay sidaas ku dooranay si kale maana ku dooranay marka aad u maasantiin aad iyo aad kaga mahad celinaynaa runtii TV-giina waxaan u maleynayaa inuu yahay TV miya ama waa channel waa Soomaa
aad iyo aad janalka haddaan nala wadaagtaan bal waxa uu yahay iyo waxyaabaha uu qabto iyo balayadan faahfaahin janalkan haddaan la wadaagno mid waxaa la yidhaha Good Family Official waxaa iskale kambaniga qaybta qalabka caafimaadka lagu gado kan kalena waxaa la yidhaahdaa bukaan deeq clinic ayaa la yidhaahdaa isna waa qaybta caafimaadka oo editorka ayaa wuxuu soo dhigaa waxyaabaha qofka caafimaadka iyo daawooyinka iyo xanuunada marka waxaan rabnaa insha Allah tacaala annagana inaan barnaamijkaas aad ku qabanno insha Allah tacaala xasan jaalna aad iyo aad mahadsantihiin runtii waan soo dhaweynaynaa aad kamid tihiin mar haddaad kamid tihiin macaamiisha Hormuud gacmo furan aad ku soo dhaweynaynaa waan ku mahadsantihiin sida aad annagana fursad noo siiseen aad nooga wareysateen waxyaabaha halkaan aan joogno waa mahadsantihiin insha Allah aad iyo aad mahadsantihiin ma sha Allah